weligiis wuxuu arki jiray dad uu iska baabacsado markaa nin haddee aqalka cad ku degan ayaamahan kastoo igu mashquulay weligiis wuxuu arki jiray dad uu iska baabacsado markaa miskiinta oo qaxooti ah oo madow oo muslimad ah wuxuu isdhahay waa baabacsan kartaa laakiin hadda dad geesiyaal inaan ka dhashay uusan ogeyn ilhaan ukaadi ilhaan cumar ee ukaadi waxay sheegaysaa daawadayaal ilhaan cumar oo meel fagaara ay ka sheegaysaa nin oday ah oo waayeel ah oo aqalka cad ku jira inuu ku mashquulo xataa u fiirsada magaca Trump uma qorto waxay leedahay oday waayeel ah oo aqalka cad ku jira ayaa maalmihii dambe ugu mashquula yeelada sidoo kalena dad badan oo iska baabacsada ayuu arki jiray laakiin anigu qofka maahi ayaa leedahay qof adag ayaan ahay oo islaam ah oo madow ah oo welina Soomaali oo adag oo dad mixnada ka soo jeeda ayaan ahay ayaa leedahay sidoo kalena hadalkeedu waxay daba dhigtay inay doonayso odaygan waayeelka inay doonayso inay aqalka cad ka bursataba salaam allah saaxiibayaal janaka subscribe hadaan ugu cusub tahay hadaa hor nolol joogtaan aad baan kaaga mahadcelinaynaa gambalka frosi maalba wararkii ugu dambeeyay ee dabgalka u baahan si ay kugu soo dhacaan muuqaalka laga dhaw si shargaray waata daawadayaal sidaad ogaday maalmihii ugu dambeeyay ninka Trump ahaa Soomaaliya oo dhanba dhulka ayuu la galo wuxuu ku sheegaba meel amni kala dambeyn iyo booliis nidaamka ka jirinba inuu dalka Soomaaliya raad oo yahayba sidoo kalena ilhaan cumarna ay tahay qof qaxooti oo masaakiina walaalkeed iyada la dhashana oo ku soo wada dalka Mareykanka markay soo galeysay xaaskeyga inuu ku keenay ayuu sheegay halka ayuu Donald Trump ku sheegay marka wuxuu leeyahay marka qof sida been ka gaartay sidoo kalena dalka ay ka soo jeedo uu yahay dal baahiya musuqna dilooday wuxuu yiri marka gabadha noocaas ah dalkeedii iyada wax jira maaha ayuu yiri marka Donald Trump gabadhii ilhaan ahayd marka oo ku taqaaneen inay reaction-ka ama falcelinta ku dheeraysa ku taqaaneen ayaa iminka marka meel fagaara waxay ka sheegtay in ninkan odayga ku mashquulsan ay doonayso inay meel iska saarto marka horan ay sheegayso inuu dad badan hor u baabacsado laakiin iyadu aynan qofkaasan ahayn ay tahay qof madow islaam oo adag oo Soomaali adag ka soo jeeda inay tahay sheegaysaa sidoo kalena waxay sheegtay in haata koor nin odayga la kulantay Soomaalida uu ku yiri ilaahanay aabaha iyo awowga ayaa ku soo koriyay ixtiraamka dadka ka waaweyn waa lagu soo koriyay ee ninkan ka weyn odaga waxba u jawaab celin haatan wixii ka dambeeya marka meel fagaara ay ka sheegtay ninkaas odaga inuu sidaas ku yiri welina dadka ka waaweyn ixtiraamo islaakin Donald Trump oonan iminka mudnaan in la ixtiraamo marka waxay sheegtay inay iminka doonayso inay aqalka cadba ka bursataba ninkanba sidoo kale ay sheegayso dadka la baabacsan jiray inayna iyadana ahayn ee matasho Soomaali meel bay joogaan ee matasho Mareykanka ay awood ku joogto odagaana iyadoo daba dhigta haatan wixii ka dambeeyna afaarihiisa iska soo xirayso ilhaan marka jaaskii ahaa meel ayay iska soo dhigtay ninkii Trump ahaana xataa madaxweyne inay tiraado ama magaciisa ugu yarto meesha way ka saartay oo waxay leedahay ninkan odaga oo aqalka cad ku jira inaa meesha ka bursanayaa doonayna ay leedahay bal marka ilhaan oo meel fagaara ka hadlaysa iska raaxaysanaysa Trumpna kabaha la dul martay ayay fasax weligiis wuxuu arki jiray dad uu iska baabacsado markaa nin haddee aqalka cad ku degan ayaamahan kastoo igu mashquulay weligiis wuxuu arki jiray dad uu iska baabacsado markaa miskiinta oo qaxooti ah oo madow oo muslimad ah wuxuu isdhahay waa baabacsan kartaa laakiin hadda dad geesiyaal inaan ka dhashay uusan ogeyn ayaan dhaweyt Iowa aan joogay odayga wuxuu yiri ilhaanay annaga Soomaaliyaan nahay adiga maalin kasta waxa dhahdaa awowgay iyo aabahey ay soo koriyay marka waxaan u maleynayaa hadii ilhaanay inay ku bareen dadka sidii loo kala weyn yahay in la isku kala xushmeeyo marka odayga miskiinka ah oo aqalka cad degan awowga ayuu noqon karaa ilhaanay odayga awowga ka xisho
marka waxaan dhahay adeer waa runtaa waa awowgay iyo aabbahay sharafay igu soo koriyeen way i bareen dadka iga weyn inaan xushmeeyo marka hadda ninkaanayti hadduu garan waayo aniga inaan ka yarahay aniga asiga meelaan ku soo kala haraynaa waxaan rajaynayaa in aan wixii aan horseed u noqday aan ku guulaysano oo hadda aqalka cad aan ka burino odaygan mar dhow soo duceeya dadka badanaa aniga kongresska markii aan socdo waxay dhahaan Ilhaan waxaad u dhaqantaa qof aaminsan meesha inay iska leedahay hadda waxaan dhahaa waa iska leeyahay waa gurigeygii waxaan kaleeto kalsooni ku qabaa in 428 qof oo meeshaasaytii ila joogto aniga aan ka cod badnaay oo dad ka badan ee aniga meeshaas ii dirsadeen marka anaga Soomaali haddaan wax helno tuugtuugsasho ma ku helnee waxaan ku helnaa geesinimadeena iyo dadaalkeena aad ugu faraxsanahay in matal aan idiin ahay oo meeshaasaytii aan idiin fadhiyo cajalka aad fiirsateen waxaa lagu sharfaayay gabdhaha Soomaalida oo haddee adduunka mucjiso ka dhigay kartidooda iyo sida sharafta leh ay u matalayaan iyo sharaftii haddee gabdhaha Soomaalida lagu yaqaanay aad aan ugu faraxsanahay inaan ka mid ahaado marka Congress kaliya first maahine waxaa laga yaabaa mar dhow gabar Soomaaliyeed oo Nobel Peace Prize haysato inaan helno taasna hadda waa wax Soomaali haddii aan nahay ay tahay in aan ku faano oo aan ay noo noqoto wax niyadda noo dhiso Soomaalida dadka badanaa way nagu wareeraan because waxay arkaan dad waddankoodii uu burburay waqti badan qaxootinimo ku jiray iyagoo dhan kala daatay oo qaarad kasta aad tagtid Soomaaliya ku arkaysaa marka dadku waxay isleeyihiin dadkan hadda waa dad dhiban oo isma fahmayaan oo way rafaadsan yihiin fikradaasay qabaan and then meelaha Minnesota kale ay tagaan ama Canada kale ay tagaan ama meelaha Soomaalida ay ku badan yihiin ay ku kooban yihiin ay tagaan waxay arkaan Soomaali oo sideenoo kaleete ah oo aad u qurux badan oo sharaf badan oo business leh guusha ay gaareen aanan laga filanaynin dad 30 sano dhib iyo dagaal iyo qaxootinimo ku jiray waa tadaawad maxaa kaga baragtay suuqlada muuqaalkana si shar gareey